gariiqanka guud agaasinka guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha guddiga doorashooyinka shirweynaha labaad ee shaqaalaha ka qaybgalayaasha shirka bahda saxaafadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ugu horeysa aan ka bilaabo inaan hambaliyo dhaho gudoomiyaha cusub fatrada cusub ee marka la doortay walaalkay Maxamed Usmaan Xaaji Cali Nuur oo loo doortay mar kale gudoomiyaha sutaga shirweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed. sidoo kale aan hambaliyo dhaho walaalkay Abuukar Axmed Xasan Abuukar oo asagana xogayaha guud. waa maasantihiin magaca u taagan tihiin waa magac aad iyo aad u gudaweyn. waxaan marag ka nahay si aad iyo aad dimuqraadi u ah shafaafi ah oo muxuu ahaaye muuqato inaad u doorateen ka guddiga baarlamaanka ee cadaaladda ahaan aaday noo soo jiidatay ka dhalinyaro ahaan ragga baarlamaanka ka tirsanne dowladnimaa muujiseen inta ladiin sheegaayo oo laleeyahay waxaan waa inay xaq iyo cadaalad ahaada doorashooyin sax ina dhacaan waa noocaan oo kale waa dimuqraadiyadda ladiin sheegaayo waa midaan oo kale midda loo socdo 2016 in la gaaro oo waddankan dadkiisa ay wax doortaana waa midaan oo kale saan oo kale waxaa la rabaa in loo soo doorto xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ee la rabo inay matalaan ilaa 2020ka muxuu ahaaye dowladda federaalka Soomaaliya. midda shaqada iyo shaqaalaha xuquuqay leeyihiin diinta islaamka way dhowrtay. nabiga calayhi salaam wuxuu leeyahay anaa u doodayo saddex qof maalinta qiyaamada anaa la doodayo. waxaa ka mid ah qofka shaqaalaha ah ee xaqiisa helin, qofka aan siinin ee loo shaqeeyaha ah ee qofka shaqaalaha xaqiisa siinin maalinta qiyaamaha waxaa la doodayo nabiga calayhi salaam. nabigu wuxuu leeyahay acdu al-ajiira xaqahu qabla an yajifa caraqah. war qofka shaqaalaha siiya xaqiisa inta uusan angegin dhididkiisa. qofkii marka qof shaqaalaha dhididkiisa cunay ha ku xisaabtamo qofkaas abuukaatihiisa ee u doodaayo waa nabiga calayhi salaam. si marka aysan u dhicin mas-uuliyadda ladiin doortay waa muhiim codkiina in la maqlo. culays iyo duruufo badanaa waddanka ka jiro inaad u doodaan oo codkiina la maqlo oo dadka wax usoo dhicisaan aaday muhiim u tahay. Soomaalidu waxay tiraa risiq reerka waa ku jira rag ka soo baxsuu rabaa. marka waxaan jeclahay raggan in noqon doonaan xuquuqda shaqaalaweynaha Soomaaliyeed raggii keeni lahaa inay tahay. waxaan rabaa fursaddan kale inaan uga faa'iidaysto. waddanka wuxuu ku jiraa siduu gariiqaanka sheegay marxalad kala guur ah. waxaa socda dib uga sii dastuurka. waxaa nala jooga xildhibaan Ibraahim Saalax Dayfallah xogeeye guddiga baarlamaanka dastuurka ah in lagu xuso dastuurka xuquuqda ay shaqaalaha leeyihiin waa muhiim. qodobaa jiro qodobka muxuu ahaaye 16aad iyo qodobka 12aad ee dastuurka wuxuu sheegayaa ururada in la samaysan karo shaqaale ay jiri karaan dadkan ay ka mid noqon karaan qof kastana xaq nololeed iyo waxbarasho iyo waxaas inuu leeyahay. intaa kuma filna. marka waxaan rabaa si gaar laga bilaabo maantadeer inaad xiriir la samaysaan xogayaha baarlamaanka guddiga dastuurka ee baarlamaanka iyo dhammaan ciddii qusayso wasaaradda iyo cid walba leh. wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ha noqoto, wasaaradda dastuurka ha noqoto, in laga qayb galo marka sidii hawshaas loo dardargelin lahaa. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ballanqaadka ay samaysay wasaaradda. waa ku garab taaganahay aad u mahadsantihiin intiina looga baahdo oo garab istaag ah.